taariikhda maalinka jacaylka iyo sheekadeeda dhabta ah ee ka dambaysa. Nasiib darro maalintani waxaa ku hoos qarsan sirar iyo mala awaal badan. Balse muuqaalkani waxaan isku dayi doonaa inaan ku baadigoobno asalka dhabta ah ee ka dambeeya xuska maalintan. Si aan nagula eedeen ama hubsasho la'aan, waxaan samayn doonaa tixraac walbaan u adeegsanay diyaarinta muuqaalkani oo ajnabi ah. Waan kula soo wadaagaynaa si wax badan adigana u sii ogaatid. Waxaan rabnaa inaan muuqaalkani jawaab uga helno 3 su'aal. Su'aasha koowaad: halkee ayay inaga soo gashay maalintan lagu tilmaamo maalinka jacaylka? Su'aasha labaad: waa kuma Valentine? Su'aasha saddexaad: waa maxay sababta casaanku u yahay midabka ugu weyn ee la adeegsado maalinka jacaylka? Aan isla raadina jawaabta su'aasha koowaad oo ah halkee ayay inaga soo gashay ciidda jacaylka. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in maalinta jacaylka adduunka lagu xuso geeridii ama aaskii baadirigii Valentine. Haddana xaqiiqadu way ka duwanaan kartaa arrinkaasi. Taariikhyahanada qaarkood waxay xaqiijinayaan in maalinta jacaylka aanay ahayn wax aan ahayn dabaaldegga Roomaaniga ah ee wataniyiinta ah Brazil oo xiriir la leh dhalmada iyo taranka. Dabaaldeggani waxa uu socday ilaa dhamaadkii qarnigii 5aad ee miilaadiga. Kadib baadiriga Gelasius wuxuu ku dhawaaqay 14 February sanadka 496 inay noqoto maalinta baadiriga Valentine, oo wuxuu u bedelay dabaaldeggii wataniga mid Kirishtaani ah si ay dadku u sii wataan dabaaldeggooda. Aan u gudubna inaan jawaab u raadino su'aasha labaad oo ah waa kuma Valentine ama yihiin Valentine. Valentine waa baadiri magaciisa, laakiin lama hubo asalka saxda ah ee baadiriga Valentine halka uu ka soo jeedo. Maadaama kaniisadda Kaatooliga ay aqoonsan tahay ugu yaraan 3 baadiri oo kala duwan inay jiraan oo wata magaca Valentine ama Valentios, kuwaasi oo dhammaantood dhintay 14 Febraayo. Mid walbana xaalado gaar ah u dhintay ayay kaniisaddu sheegtay. Waxaa jirta 3 sheeko kala duwan oo xusaysa asalka baadirigani Valentine. Sheekada koowaad wuxuu ahaa baadiri noolaa qarnigii 3aad kuna noolaa magaalada Roma, waxaana loogu yeeri jiray Valentine Roma. Markii boqorkii Claudiuskii labaad uu soo saaray amar uu ku mamnuucayo guurka ragga dhalinyarada ah si uu u kordhiyo tirada askarta ee ciidankiisa, baadiriga Valentine ayaa ka hor yimid go'aankii Claudius oo wuxuu bilaabay inuu si qarsoodi ah isugu guuriyo dhalinyarada. Markii la ogaaday baadirigii ayaa wuxuu Claudius amray in xabsiga la dhigo kadibna la dilo Febraayo 14keedii sanadka 278 ama 270. Si sheekada loo qurxiyo ayaa waxaa la sheegay in Valentine uu qoray kaarkii ugu horreeyay ee jacaylka. Sheekada labaad waxay tilmaamaysaa in Valentine oo ah baadiri ku noolaa magaalada Terni ee dalkaas Talyaaniga, isagana loo dilay sababo ah wuxuu caawiyay Masiixiyiinta inay ka baxsadaan xabsiga adkaa ee Roomaanka. Sheekada saddexaad uma badna inuu wax lug ah ku lahaa dabaaldeggani, waxaana lagu dilay Afrika. Aan ku soo gabagabayno muuqaalkeena inaan jawaab u raadino su'aasha saddexaad oo ah waa maxay sababta casaanku u yahay midabka ugu weyn ee la adeegsado maalinka jacaylka? Waa maxay asalkiisu? Dabaaldeggani wataniga Roomaaniga Brazil ayaa ahay mid aad loola yaabay, waxaana ka mid ahay dhaqamada ugu yaabka badnaa ee la sameynayay in hablihii dabaaldegaya ay geed u keenayeen cunto iyadoo wehlinayaan 2 wiil oo dhalinyaro ah oo gebi ahaanba qaawan. Kadibna ay gowracayaan iyo riyo ay calaamad ugu dhigaan badbaadada bacriminta iyo dhalmada. Kadibna labada nin ee dhalinyarada ah waxay marinayaan jirkooda dhiig xayawaan ah oo isku dhafan. Tani waa isha ugu macquulsan ee midabka cas ee calaamadda maalinta jacaylka. Kadibna labadan dhalinyarada ah ayaa hogaaminaya xafladda iyagoo ku soo wareegaya magaalada Roma iyagoona wata 2 maqaar oo harag oo dhiig leh, kuwaas oo ay marinayaan qof kasta ay la kulmaan iyagoona aaminsan inuu kordhinayo taranka. Su'aasha isweydiinta mudan hadda ayaa waxay tahay: adigoo u dabaaldegaya maalintan lagu tilmaamay jacaylka, waxaad u dabaaldegaysaa ciid watani ama ciid baadiriga Valentine ee Kirishtaanka?